Assalaamu calaykum. Ma kugu dhacday daawada mar aad tagtay suuqa adigoo ka soo iibsanaya alaab? Markii aad soo iibsatay ama soo gadatay alaabtiina ma ogaatay in aysan qiimahan laga siin suuqa oo lagu dhacay. Haddaba muuqaalkeenan maanta waxaan kugula wadaagi doonaa in laba jeer iibiyey amaba gaday sidaad u taqaanidba birta dheer amaba towerka dheer ku dhex yaala magaalada Paris ee dalka Faransiiska ee Eiffel. Ninkaasoo lagu magacaabi jiray Victor Lustig. Aniga walaalkan Cabdimajiid ku soo dhawow muuqaalkeena maanta. fadlan haddaad ku cusub tahay kanaalka ku soo biir like-na mahadsanid. waxa uu ku dhashay ninka lagu magacaabo Victor Lustig waddanka Bohemia oo maanta loo yaqaano Jamhuuriyadda Czech Republic sanadka markuu ahaa 1890. waxa uu soo kici timay markii uu xoogaa ay da'diisu kortay amaba uu xoogaa qaangaadhay dalka Mareykanka, waxaana uu ahaa ninkani mid raaci jiray dadka dalxiisayaasha ay u kala gooshay dalalka Mareykanka ilaa dalalka Yurub oo xilligaas ahaa kuwa ay dalxiisayaashu uga kala gooshaan oo uga kala socdaalaan dadyowgaas oo halkaas uu ku dhici jiray. ninkani waxa uu ninkani ku hadli jiray ku dhawaad 5 luqadood, waxaanay gaadhayeen magacyada uu isticmaalay inta uu ku guda jiray dhacidda iyo khiyaanada dadka 47 magac iyo baasaboorro dhowr ah oo uga kala socdaali jiray wadamada adduunka qaar. qaybo ka mid ah baasaboorradaas oo ahaa kuwa bugaayana. intaas kadib waxa ninkan lagu magacaabo Victor Lustig ay ahayd dhacdadii ugu horeysay ee dhicitaan ay ku dhaqaaqay inuu soo qaado oo uu sameeyay sanduuq amaba aalad yar oo 6 saacadoodba daawacaysa $100, waxaana uu damcay oo uu doonay inuu ka qanciyo dadkii kula noolaa dalka Mareykanka kartida iyo shaqada ay qabanayso aaladan yari amaba sanduuqa yari. muddo yar kadibna waxaa ka iibsaday ka mid ah raggii magaalada kula noolaa. ninkiina waxa uu kaga iibsaday Victor Lustig aaladii qiimo aad u sarreeyay xilligaas oo ahaa $3,000, balse markii ay ninkan u daawacay mashiinkii $200 oo 6 saacadoodba 100 ahaa, waxa uu mashiinkani ahaa mid 6 saacadood ee saddexaad ee kale soo saaraya warqad cad. halkaana waxa uu ninkani ku ogaaday inuu dhacan yahay oo uu dhacay Victor Lustig. haddii uu baadigoobayna ma uusan helin ninkii Victor Lustig wax raadaha uu ka tegay, sababtoo ah waxa uu Victor u baxsaday dalkaas Faransiiska amana uu socodsiin ninkii uu ka iibiyey booliska, sababtoo ah isaga ayaaba dembi dusha laga saaraya oo daalac loo raacaya. kadib markii uu Victor Lustig tegay dalkaas Faransiiska xilligaas oo ay taariikhdu ahayd 1925 dhammaadkii dagaalkii koobaad ee adduunka, waxa uu ahaa dagaalkani mid lagu jebiyey amaba burbur ba'an loo geystay dalkaas Faransiiska, dhulkana ay gashay magaaladii Paris burbur awgeed. ayaa waxaa maalin ninkii Victor ahaa soo baxay maqaal ku yaalay jaraa'id uu akhrinayay. maqaalkaas oo ahaa inuu qarka u saaran yahay oo uu dhici rabo towerkii dheeraa ee Eiffel ama birtii dheereed ee Eiffel, waxaana dayactirkiisa amaba dib u dhisidiisaasi ku baxaysa lacag aad u badnayd. markii uu ninkani akhriyay maqaalkii jaraa'idka ku yaalay waxa uu dejiyay balan ama maskax ku iibinaya towerkan ama birtan dheer gegeedaba, waxaana uu Victor ahaa mid haystay kaadh ay ka qoran tahay amaba iskaga dhigayo inuu yahay mid dowladda ka shaqeeya, halkaas oo ahaa been abuur amaba fake. intaas kadib wuxuu ku casuumay 6 ka mid ah maalqabeennadii kula noolaa magaalada Paris ku yaalay magaaladaas. markii uu isugu yeedhayna 6 nin waxa uu Victor u bilaabay sababta uu isugu yeedhay oo ku yidhi nimankii maalqabeennada ahaa waxaan ka mid ahay dowladda, waxaanan 6 qof la idinku yeedhay waa iibsashada towerkan dheer ee Eiffel ahaan oo aan ku fashilanay dowlad ahaan haddaanu nahay dayactirkiisa ama dib u dhisidiisa. markaa waxaanu idin soo bandhigaynaa iibsashada towerkan dheer ama birtan dheer furfur ahaan, sababtoo aanu 6 idinku yeedhnay inay tahay sir dhexdeena taala, haddii kale uu shacabku maqlana ay dhibaato ka iman karto. waxaana dabankii Victor ku soo dhacay mid ka mid ah raggii maalqabeennada ahaa oo lagu magacaabi jiray Boyson oo ka aqbalay inuu ka iibsado towerkan Eiffel furfur ahaan, balse markii uu ku noqday Boyson gurigiisii ayaa waxa uu la socodsiiyey arrinkii ahaa iibsashada furfurka towerkan dheer ama birtan dheer gabadhiisii. laakiinse waxaa shaki geliyay gabadhii uu qabay Boyson sababta sirta looga dhigayo iibsashada amaba iibinta towerkan dheer, waxaanay ka hor joogsatay ninkeedii iibsashada towerkan. laakiinse waa uu ku qanciyey Victor ninkan iibsashada furfurka towerkan amaba birtan dheer, waana uu ka iibiyey Victor ninkii birtii dheereed amaba towerkii dheereed, waxaana uu ka qaaday lacag dhan $200,000 oo xilligaas aad uga badnayd qiimaha maanta ay taagan tahay amaba qiimaha maanta. haddaba waxa maalintii uu ballanku ahaa in loo furfuro ninkan Boyson ahaa birtii dheereed cidba u iman weyday oo uu ogaaday inuu dhacan yahay oo uu ninkii Victor ahaa dhacay, waxaana Boyson ka xishooday inuu la socodsiiyo booliska arrinkii dhacay amaba dhaci lagula kacay oo waa uu iska aamusay. arrinkaas oo ninkii Victor ahaa bil kadib markii uu waayay dhaqdhaqaaq iyo baafi dhankiisa uu damcay inuu ku kaco falkii iibintii towerka dheer ama birta dheer mar labaad, waxaana jirtay
oo pointkaasi soo xasuusiyay maamaha Soomaaliyeed oo oran jirtay daawo halkii macal lagu baratay macluul lagu baqtaaye. waxaa ninkaas Victor isugu yeedhay rag ka mid ah haddana maalqabeenadii Paris oo sidii oo kale ugu sharxay arrinka jira, balse waxaa markii uu soo dhammaaday shirkii la wadaagay arrinkii Victor booliska mid ka mid ah raggii maalqabeenada ahaa oo isugu yeedhay. maalinkii kulanka labaad ahaa waxaa Victor qabtay booliskii dalkaas Faransiiska oo xabsiga u taxaabay muddo yar kadibna oo ku xidhnaa jeelka. Victor waa uu ka baxsaday oo u kacay dhankaas iyo dalkaas Mareykanka. markii uu galayna ninkani dalkaas Mareykanka iskama u dhaafin shaqadiisa dhicitaanka iyo khiyaamada ahayd. waxa uu tagay nin lagu magacaabo Al Capone oo ah raggii ugu khatarsanaa ee maafiyada ahaa waagaas dalka Mareykanka. waxaana uu Victor weydiistay in uu siiyo lacag dhan $50,000, lacagtaas oo uu 2 bilood kadib u soo celin doono iyadoo ay la socoto ama uu soo raacin doono faa'iidada ama ribada waxaynu naqaano. waana uu siiyay Al Capone lacagtii Victor, laakiinse Victor waxa uu wariyo walbahaar ku abuuray lacagtan uu soo siiyay iyo qaabkii uu dhici lahaa. waxaana uu 2 bilood kadib lacagtiisa oo dhammaystiran oo aan faa'iido la socon, waxaana uu ku qanciyay inuu kala kacay oo uu fashilmay mashruucii, sidaas awgeedna ugu soo celiyay lacagtii oo dhammaystiran. markii uu Al Capone u soo celiyay lacagtiisii waxa uu la yaabay ikhlaasnimada iyo daacadnimada Victor. ninkii Victor ahaana waxa uu ka siiyay lacagtii $5,000 oo uu hadiyad ahaan u siiyay Victor. ugu dambeyntiina waa la qabtay ninkii Victor Lustig ahaa isagoo ku guda jira shaqadiisa dhicidda ahayd burcadka ahayd, waxaana lagu xukumay muddo dhan 20 sano oo xabsi ah. waxaana lagu magacaabaa xabsigaas la geliyay Alcatraz oo ka mid ah xabsiyadii ugu ilaalada adkaa ee waagaas amaba ilaa hadda ee dalkaas Mareykanka, waana uu ku dhintay xabsigaas ugu dambeyntii. muuqaalkeena maanta intaas ku eegyahay. anigu hawlaalkan Cabdimajid oo idinkaga tegaya amaano Allah.